Assalamu alaikum carruurey. Assalamu alaikum. Kusoo dhawaada barnaamijkeeni Sheekoy Sheeko with Miss Mariam. That's me. I'm so happy to have you back, friends. Asxaabey, maanta waxaan baran doonaa bilaha sanadka iyo maalimaha isbuuca. Bilaha sanadka means the months in the year. Bilaha means months. Sanadka means year. So bilaha sanadka means the months in the year. We are also going to learn all about the days of the week. The days of the week. In Somali, we say maalmaha isbuuca. Arday Miss Mariam bana hay, Arday Miss Mariam bana hay, Arday Miss Mariam bana hay. Ubuhi wadankana hay, Ubuhi wadankana hay, Ubuhi wadankan kalkuhe. Harfahan akhrina, ha ha. Midabadan barana, ha ha. Tiroyinkan tirina, ha ha. Tiroyinkan tirina, ha ha. Sheekooyinkan dhegaysana, ha ha. Sheekooyinkan dhegaysana, ha hay. Arday Miss Mariam bana hay, Arday Miss Mariam bana hay, Arday Miss Mariam bana hay. Ubuhi wadankana hay, Ubuhi wadankana hay, Ubuhi wadankan kalkuhe. Arday Miss Mariam bana hay, Arday Miss Mariam bana hay, Arday Miss Mariam bana hay. Ubuhi wadankana hay, Ubuhi wadankana hay, Ubuhi wadankan kalkuhe. Maalmaha isbuuca means the days of the week. Isbuucii waxaa ku jirta 7 maalmood. 7 maalmood. 7 days. 7 maalmood. Maalmahaas waxaa la dhahaa Axad, Isniin, Talaado, Arbaco, Khamiis, Jimco, Sabti. Axad iyo Isniin, Talaado iyo Arbaco, Khamiis iyo Jimco, Haylaawin Sabtida, maalimaha isbuuca. Maalimaha isbuuca. Axad iyo Isniin, Talaado iyo Arbaco, Khamiis iyo Jimco, Haylaawin Sabtida, maalimaha isbuuca. Maalimaha isbuuca. Yay! Great job! Do you know how to say good morning in Somali? Subax wanaagsan. Wake up. Say good morning. Subax wanaagsan. Subax wanaagsan. Subax wanaagsan. Yes, subax wanaagsan. Good morning. It's the afternoon. Galab wanaagsan. You're a little bit calmer. Galab wanaagsan. Galab wanaagsan. Now it's time for bed. Habeen wanaagsan. Habeen wanaagsan. Habeen wanaagsan. Good job. Now you try by yourself. Now I say it in English, you say it in Somali. Good morning is Subax wanaagsan. Okay, good afternoon is. Come on, say it. I want to hear you. Yes, galab wanaagsan. And at night we say habeen wanaagsan. Habeen wanaagsan. Good job. Oh, I'm so proud of you. Now you know how to say subax wanaagsan, galab wanaagsan, and habeen wanaagsan. Shaqo fiican ayaad qabateen carruurey. You did a great job. You did a great job. Just a moment. Please make sure you like, share, and subscribe to our channel. That way we can create more videos just like this one.
أصحابي ما لا socotaan sanadka waxaa ku jira 4 xilli. Xilli means seasons. So in a year we have 4 seasons. 4 xilli. Can you show me 4 fingers? Count in Somali. Kow, labo, saddex, afar. 4 xilli. Magacooda waa go go xagaa xagaa dayr dayr jilaal jilaal allah ilaahayow baraf aad u badan baa da'aya Miss Mariam way qarqaraysaa war asxaabe waxaa looga baahan yahay inay Miss Mariam samayso ma waxay xirataa sarwaal gaaban mise jaakad diiran jaakad diiran iyo gacmo gashi eeg caleemaha sida ay u dulduulayaan mid baa ku sigtay wejiga Miss Mariam asxaabe wuxuu idin leeyahay xilligan ma kulayl baa bannaanka ma waxaa looga baahan yahay Miss Mariam inay xirato jaakad culus mise funaanad diiran funaanad diiran cimiladani waa mid fiican oo qabow yar leh roob aad u badan baa da'aya Miss Mariam way qoyday asxaabe dhaqsada maxay u baahan tahay Miss Mariam ma dallad baa mise muraayadaha qorraxda dallad dhaqso carar Miss Mariamay aad buu u kulul yahay bannaanka Miss Mariam waxay dareemaysaa sida jallaato dhalaalaysa oo kale asxaabay maxaa looga baahan yahay inay samayso Miss Mariam ma inay xirataa jaakad jilaal mise waa inay aadaa xeebta oo cabtaa biyo qabow xeebta ha aado oo yaysan ilaabin muraayadaha qorraxda Hi friends, my name is Ilham. Magacayga waa Ilham. Today we're going to play a game called the month of the year. Maanta waxaan baran doonaa bilaha sanadka. The game that we're going to play together today is I'm going to say it in Somali and you're going to say it in English. Are we ready? Let's get started. Janayo. Janayo. Febrayo. Febrayo. Marzo. Marzo. April. April. Mayo. Mayo. June. June. Julio. Julio. Agosto. Agosto. September. September. October. October. November. November. December. December. Good job, friend. Gennaio, febbraio, marzo, Abril, May, giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre, dicembre, gennaio, febbraio, marzo, aprile, May, giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre. dicembre. هيا عروري ديار متيننا عادنا مكتبة مستر محمد أو مكتبة له بقين السوقية هيا صباحا أنا مريع أختي نوم هارنا Let's go there's no time geeddi wuxuu ahaa wiil aaminsan inuusan qofna ka garasho badnayn gaar ahaan hooyadii markii barafkii ugu horreeyay saqafka gurigooda uu hareeyay hooyadii waxay ku tiri geeddiyow
jiilaalkii wuu yimid. Waa inaad xirataa koofiyad iyo jaakad dhumuc leh iyo gacmo gashi cuf leh. Laakiin geeddi intuu indhaha rogrogay ayuu yidhi, waa culays aad bay u kulushahay. Anigu waan degdeg badanahay. Qabowga ima karayo. Markaasuu bannaanka u cararay isaga oo wata jaakadiisii khafiifka ahayd ee uu jeclaa. Maalin subax ah oo qorraxdu aad u iftiimaysay, inkastoo qabow daran uu jiray, ayuu hooyadii ku yidhi, arag hooyo, qorraxdu waa jaakadayda. Isagoo iska indhatiraya dharkii kululaa ee hooyadii u diyaarisay. Hooyadii oo qoslaysa ayaa tidhi, dabayl caraysan baa dhuumanaysa geeddiyow. Way ku og tahay oo way khiyaano badan tahay. Geeddii wuxuu u cararay beerta. Runtii qorraxdu waxay ahayd mid diirin karta jirkiisa. Laakiin haddana mar qura, dabayl qaylinaysa oo wareegaysa ayaa soo dhacday. Dabayl caraysan waxay hoos ka gashay jaakadiisii khafiifka ahayd. Waxay qaniintay dhegihiisa. Waxayna mar qura ka qaaday diiranaantii. Geeddii waxaa si ba'an u galay qabowga. Wuxuuna u cararay guriga isagoo kufacaya. Habeenka sankiisii waxa uu isu beddelay tubo biyo daadinaysa. Madaxiisuna wuxuu u ekaaday sidii kubbad culus. Cunaha ayaa kala go'naa. Geeddii waxaa soo weeraray hergab halis badan. Hooyadii waxay ku duuduubtay busto, waxayna siisay maraq kulul. Waxay ku tiri iyadoo codkeedu deggan yahay, dabayl caraysan ayaa heshay wiilkii inuu dhagaysto diiday. Geeddii oo sanqaraya ayaa yidhi, qofka ku jecel markaad dhagaysato waxaad noqonaysaa mid faraxsan oo caafimaad badan. Quraacda, breakfast time, right? Quraac is breakfast. Quraac. Quraac. Quraacda waxaa la cunaa subaxdii. Eat our breakfast in the morning. Quraacda waxaa la cunaa subaxdii. Qadada. Qado means lunch. Qado. Qadada waxaa la cunaa Duhuradii. cashada waxaa la cunaa habeenka. Habeenka ayaa la casheeyaa. We eat dinner at night. I need your help with some matching. Can you help me match each food item and help me where it goes? Which one is quraacda? Maxaa loogu quraacda? Canjeero iyo shaax waa quraac. Haye, kee baa qado ah? Maxaa lagu qadeeyaa galabtii? We eat lunch in the afternoon. This one or this one? Yes, this can be qadada. Haye, cashadana. Maxaa lagu casheeyaa? Cashada waxaa la cunaa habeenka. Habeenka ayaa la casheeyaa. Goorma ayaad dhalatay? When were you born? Goorma ayaad dhalatay? When were you born? I'm asking you a question. Goorma ayaad dhalatay? When were you born? Bishe ayaad dhalatay? Bishe. Which month? Markaad maqashid bisha aad dhalatay, gacanta taag. When you hear the month you were born, please raise your hand. Haye dhaha. Haye, Janaayo. Yaa dhashay Janaayo. Gacanta taag. Raise your hand if you were born in January. Janaayo. Haye, yaa dhashay Febraayo. February. Who was born in the month of February? Febraayo. Anaa dhashay bisha Febraayo. I was born in the month of February. Miss Mariam's birthday is in February. Anybody else? Yaa dhashay bisha Febraayo. Oh, hi birthday twin. We share a birthday month. Haye, yaa dhashay Maarso. Gacanta taag. Yaa dhashay bisha Maarso. Who was born in March? Raise your hand if you were born in March. Hi, March friends. Oh, nice. Okay. Yaa dhashay
Bisha Abril. Abril. April is Abril. Who was born in the month of April? I see you all. Halkan waxaan ka salaamaya asxaabteeda dhashay bisha Abril. Hi friends who were born in April. Yaa dhashay bisha Mayo. yaa dhashay Mayo. the month of May. Who was born in the month of May? Where are my Majo friends? Ooh, I see you. I see you. Wow, so many Majo friends. Happy birthday month. We are in the month of Majo. Happy birthday. Okay. Ya dashay bisha June. Friends, where are you? Who was born in the month of June? June. Hi, friends. Oh my goodness. Your birthday is coming up. Dala shawaan. Dala shawaan. Happy birthday. Haye, ya dashay bisha Lulio. Lulio. Can you say Lulio? Lulio. That is the month of July. In Somali, we say Lulio. Haye, ya dashay bisha Lulio. Who was born in the month of July? I'm gonna put on my pretend binoculars. I'm looking for friends who were born in the month of Lulio. Oh, July friends. I see you. Wow, your birthday is also coming up. Okay. Ya dashay bisha Agosto. That is the month of August. August, you say Agosto. Agosto. September. Where are my friends who were born in the month of September? In Somali, September is the same, honestly. September. September. There's not much of a difference, is there? Hi, September friends. Hasalam ya ashabteeda dhashay September. Haye, October. 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 October is October. They also sound very similar. So October, in Somali we say October. Ya dashay October. Ya dashay October. One idin salame. One idin salame. I'm passing my salams to you. I'm saying hello. One idin salame. Dashay November. November. Not November with the V. In Somali, we say with the F. November. Ya dashay November. Who was born in November? Any of my friends born in November? 1, 2. Oh, I see you over there. Hi. Hi, friends. And for the last month, December. Ya dashay December. In Somali, we say December. 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 It's the same. Very similar. They're very close. December. Wahabenki dalashadade. Wahabenki dalashadade. Hambaliyaho kusodowena. Hambaliyaho kusodowena. Wahaben one accent, baram pum pum. Wahaben one accent, baram pum pum. Wahabenki dalashadade. Wahabenki dalashadade. Hambaliyaho kusodowena. Hambaliyaho kusodowena. Wahaben one accent, dun dun dun. Wahaben one accent, bum bum bum. Dalashawaan. That's how you say happy birthday. Dalashawaan. Happy birthday. Dalashawaan.
وعشية أصحابي intaas ayaan kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkeeni Sheekoy Sheeko with Miss Mariam. Nabadgelyo asxaabtayda waa waqtigii maca salaamada farxad ayaan wadaagnay mar kale ayaan is arki doonaa. Love you guys. Bye.